warnabadii ma qaadateen warnabadii ma qaadateen nabadii madaxweynuhu halkaan u yimid oo weeraraya saxad ugu baaqay galabtay ma naga dhaba waa qaadana Soomahan meeshaan waxa loo rabaa degmadii Galinsoor in guryaheedii la dhiso gurigii nabadda hadeeraanu bari maalmahan baan dhagax dhigi doonaa hadii Ilaahay qadaro magaaladan waxa la rabaa qof walba oo reer Galmudug oo deganaa oo guri ku lahaa si nabad ay ku yimaado leenahay dhinacayaga anoo waa hirgelinay waana u jeedaan oo sidar muuqda su'aalka roon in aan soo saarnay ciidamadii waxaan rajaynaynaa insha Allah taala walaalaheena kaleeto oo weerdheed oo walaalahan aanu ku heshiinay in dadkaas maarta wanaagooda laga shaqeeyo in sida aan yeelay ay nagu daydaan khiyaar waxa la yiri wadada ku kala lunta nagsa ballan kuma kala lunto go'aankii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynuhu noo gogol dhigay oo naga weerdhaas ku kaan yeeray saddexdii qodob aan ku heshiinay oo mid ahayd xabad joojinta midna ay ciidanka in la kala qaado midna ay ahayd hadii la idankeeda ilaa 3 bilood annagu qodobkii labaad baan maantay baan oofinay ciidankii waa soo saarnay saacad jiidaay ka soo ku jireen baan ka soo saarnay meeshii bartii loo cayimay baan keenay Galinsoor ceelwaawadi baa la inta joogtaana waa marxaati waad u jeedaan ballantii anagu waa oofinay anagu maalintii saddexaad ayaanu ka jawaabnay wixii lagu ballamay oo ciidankanagu halkan jooga ayadoo la og yahay markii nabadda aan bilaabaynay wixii markaas dhibkii jiray oo ama dhimashaha ama dhaawac ahaa in saacad xagiisa jiray saacad uu ka baaqsaday arintaas inuu ka arguto oo nabad ku bedesho ku qaatay inuu hadana ugu hormaray in jiidii uu ka soo baxo oo halkan uu yimaado oo haba yaraatay maanta gaadiid ee jiida ka jira u jirin ayaguna waa arin ku mahadsan yihiin Soomaalidana la rabo inay ku daydaan suldaanka xildhibaanada odayaasha dhaqanka waxgaradka saraakiisha bahda saxaafadda iyo ciidamada دمان واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحن مالينا يا واحد صدر مقضى سؤال كدن وحي اللي باللمي هل كان مقالة Galinsoor oo ahayd in nabad di uu madaxweynuhu daah furay oo looga shaqeeyay ilaa iyo Dhuusamareeb oo madaxweynuhu uu juhdiga badan ku baxshay runtii waa uga mahad celinaynaa wasiiradii ka shaqeeyay iyo dhammaan odayaashii iyo waxgaradkii waxaan isleeyahay maantay qaybtii koobaad second time-kii ama waqtigii labaad markii heshiiskii laga soo gudbo tii labaad waxaan leenahay dhinacayaga anoo waa hirgelinay waana u jeedaan oo sidar muuqda su'aalka roon in aan soo saarnay ciidamadii waxaan rajaynaynaa insha Allah taala walaalaheena kaleeto oo weerdheed oo walaalahan aanu ku heshiinay in dadkaas maarta wanaagooda laga shaqeeyo in sida aan yeelay ay nagu daydaan oo ayaguna ay sidoo kale yeelaan waxaan kale rajaynaynaa dadkii loogu talagalay inay kormeer iyo gudiyadii loogu talagalay inay qabtaan oo xaqiijiyaan arinta tan in ay qabtaan shaqadii loogu talagalay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqada aad qabateen iyo ciidanku sidii ay u fuliyeen hawshii lagu ballamay dhinacayaga waa uga mahad celinaynaa ciidamada iyo mataqaana raggii arintan aan wada galnay oo odayaasha dhaqanka ay ka mid ahaayeen suldaanka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin arintana waxa weeye sidaas maantay maaragtay ay u dhacday waxaan ka rajaynaynaa Soomaalida oo dhan Ilaahay inuu wada waafajiyo arintaas maanta Galinsoor anagu aan ku sameeynay in la ku wada daydo oo meel walba ay ka dhacdo nabad oo Galmudug kamid ah ama dhulka Soomaaliyeed ay kamid tahay madaxweynahana si gooniya ayaan ugu mahad celinaynaa Maxamed Axmed Cabdi Kaariye qorqor oo runtii ku dadaalay inaan beelahaas walaalaha ah oo weerdhac iyo hadii la ku roon yahay sacad wax dhacay waa dhaceen wax damba ka dhicin sidoo kaleeto meelaha badan ka sameeyay isku daygaan oo kaleeto kuwa kalena sidaas aan ugu baaqaynaa in walaalnimadu ay socoto oo nabadda laga shaqeeyo ayada naas la nuugale aada u mahadsantihiin rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan maanta joognaa magaalada Galinsoor degmadii Galinsoor ee qadiimiga ahayd
oo maanta la isugu keenay ciidamadii jiidaha laga soo saaray ee beesha Sacad. waxaan rabnaa inaan u sheegno madaxweynaha Galmudug guddigii isku dhafka ahaa oo 62 ahaa ummadii dhageysanaysay Sacad iyo Weerdhac heshiiskoodii maanta annagoo Sacad ah halkan waxaan isugu keenay ciidamadii annagoo fulinayna ballankii lagu ballamay tiknikadii iyo ciidamadii halkan aan isugu keenay ballankii waa fulinay walaalaha iyo Weerdhac waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas fuliyaan sidaas oo kaleeto waxaana soo gaaraya meelihii jiidaha aan ka soo saarnay ciidamada in ciidamadii tiknikadii wali joogaan baan soo gaaraya waxaan ku baaqaynaa nabadii la qaatay nabad baa naas nuuga leh ummaddu nabad bay rabtaa magaaladii Galnisoor annagoo joogna war nabadii ma qaadateen nabadii madaxweynuhu halkaan u yimid oo Weerdhac Sacad ugu baaqay galabtay ma naga dhaba waa qaadana Soomahan meeshaan waxa loo rabaa degmadii Galnisoor in guryaheedii la dhiso gurigii nabadda hadeeraanu bari maalmahan baan dhagax dhigi doonaa hadii Ilaahay qadaro magaaladan waxa la rabaa qof walba oo reer Galmudug ah oo deganaa oo guri ku lahaa si nabad ay ku yimaado qof walba guri waxaan rabnaa oo kale qorshaha noogu jira hadii Ilaahay qadaro in la furo wadada gasha kaalkacay inta ka soo baxdo halkaan martay jigjiga gasha oo dhabad marta oo caawdu aq tagta dhammaan in la furaal rabaa waxaan rabaa arrintaas heshiiskaas aanu wadnaa magaaladan waxa la rabaa waa magaalada isku xirta labada gobol waa bartamihii Galmudug waxa isku xirtaa Galgaduud iyo Mudug xaggana waxay u xigtaa Galgaduud xaggana Galmudug baa laga soo galaa waa magaalo macno weyn leh waxaan rabaa macnihii ay lahayd iyo sidii ay ahayd in lagu soo celiyo sidaas nabadaasan ku baaqaynaa walaalaha iyo Weerdhac meel ka soo la joogo waxaan qaadanay hadaan nahay Sacad nabadaas inaan nala qaadataan ciid waxa hadda la soo sheegaya mar labaad baan ku celinayaa meel 5 meelood oo meel ciidanka laga soo qaaday ka soo horjeeda tiknika inay taalo ayaa naloo sheegay dadkii wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo odayaashii ballankaas nala galay inay fuliyaan baa la rabaa khiyaar waxa la yiri wadagu waa ku kala lunta nagsa ballan kuma kala lunto go'aankii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynuhu noo gogol dhigay oo naga Weerdhac isku kaan yeeray saddexdii qodob aan ku heshiinay oo mid ahayd xabad joojinta midna ahayd ciidanka in la kala qaado midna ay ahayd hadii la idankeeda ilaa 3 bilood annagu qodobkii labaad baan maantay baan oofinay ciidankii waa soo saarnay Sacad jiidahay ka soo ku jireen baan ka soo saarnay meeshii bartii loo cayimay baan keenay Galnisoor cilwaawadi baa la inta joogtaana waa marxaati waad u jeedaan ballantii annagu waa finay madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qooroor waa u mahad celinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ballaaran annagu ballantii waa ka soo baxnay ciidankayaga waad u jeedaan gaadiidkayagana waad aragtaan magaalada Galnisoor oo degmadii bay maanta taagan yihiin ballantii waan oofin waxaan rabnaa in la helo walaalaha kale in laga helo wixii aan ku ballan ciidanka inay meesha ka saaraan waxaan intaas weheliya ciidankii loogu tala galay kormeerka oo la rabo inay wax xaqiijiyaan oo qolada meesha ku jira ay ogaadaan oo qolada baxda ay xaqiijiyaanna waxaan ka rabnaa wasiirka amniga iyo xukuumadda Galmudug oo madaxweynuhu ugu sareeyana waxaan ka rabnaa inay arrintaas si cad inay u soo ogaadaan baan doonaynaa haddaan ay deegaanka Galnisoor annaga arrinkaygu halkaas marhaya aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahad celinaynaa nabadda uu ka shaqaynayo isfahanka labada beelood oo reer Galmudug oo isfahansiiyey oo wada taala oo waqti badan iyo juhdi ku lumiyana waa ka mahad celinaynaa annagu nabadda waa soo dhawaynaynaa Sacad ahaan diyaar baan u nahay ilaahay baana ka barinay waxa weeye intaas waxa la yiri codkaaga waa la dheeraystaa baa la yiri annagu cod dheer waxaan ku leenahay nabadda inaan soo dhawaynayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa ciidamada sharafta leh deegaanka reer la kuurinayay reer Galnisoor walaalaha meesha taagan oo waajibkoodii gubtay oo suldaanku hogaaminayo oo waajibkii aan ku ballanay sida diiran u gutana aad iyo aad baan u mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad wanaagsan iyo soo dhaweyn walaalaha hadii la kuurin aan heshiinana waxaan rabnaa si furcad leh oo inay ciidanka meesha uga qaadaan wada hadalkii qodobkii noo dhimanaana aan wada dhammaystirno oo aan u gudubnaa rabnaa wadankuna amni inuu noo noqdo ha fusho wixii aan ku ballanay golaha wasiirada golaha xildhibaanada madaxweynaha hadii la kuurin Galmudug go'aanka ay ridaha fulo
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo dhammaan waxgaradka iyo dhalinyarada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي سبحانه وتعالى ومهنقها marka labaadna waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye iyo xukuumaddiisa isku hawshay hawshaan maanta halkaan soo gaartay wax badan ka geystay isku keenay muqaabaleeyey juhda badan geliyey allaha dhowro ilaahayna ha xafido kaalmana allaha siiyo iyo dhammaan dowladda galmudug marka xigta waxaan u mahadnaqayaa ciidamada fuliyey arrintan maanta halkan taagan oo qaatay nabadda qaatay oo u muuqda inay dadka ugu horeeyaan nabadda qaatay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa odayaashii ayaguna juhdiga badan geliyey iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii galmudug oo shaqada badan ka qabtay in maantay halkan arrintu soo gaarto iyagana waa u mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan ku soo koobo maantay maalintii saddexaad ayaa halkan ciidamada iyo gaadiidkeena joogaa oo galnisoor ku soo aruuray mahadnaqa waxaan ka tegey degmada galnisoor iyo madaxdeeda ayagana si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa sida ay noo maamuuseen oo noo soo dhoweeyeen oo halkan ciidamada faraha badan iyo gaadiidkooda ku martigeliyeen waxaan rabnaa annagoo maalintii saddexaad ayaannu ka jawaabnay wixii lagu ballamay oo ciidankanagu halkan joogaa ayadoo la og yahay markii nabadda aan bilaabaynay wixii markaas dhibkii jiray oo ama dhimashaha ama dhaawac ahaa inuu sacad xaggiisa jiray sacad uu ka baaqsaday arrintaas inuu ka arguto oo nabad ku beddesho ku qaatay inuu haddana ugu hormaray in jiidihii uu ka soo baxo oo halkan uu yimaado oo haba yaraatee maanta gaadiid ee jiidda ka jira uusan jirin ayaguna waa arrin ay ku mahadsan yihiin soomaalidana la raba inay ku daydaan galmudug iyo dadkii walaalaha ahaa iyo dadkiina maqlana tusaale oo aan ogeysiinayno marka waxaan doonaynaa inkastoo ogahay inay maanta hawl ku jiraan walaalaha iyo beesha wagardhiceed iyo odayaasheedii inay sidaan kale u jawaabaan laakiin weli jawaabteedii weli maana helin inaan sida ugu dhaqsaha badan helno si nabaddii weynayd oo galnisoor loo asteeyey in maaragtay gogolxaarkeedii 3 bilood oo hadda bil iyo wax ka badan ay tageen in nabaddii la sugo oo maaragtay xabajoojinta shaqayso oo dadkii dhibaatada uu maaragtay isku qabay ballankii la wada gaarsiiyo ay wada qaataan annaga dhinacayaga arrinta waa ka soo baxnay walaalahayow arrinta adinkuna ka soo baxa dowladdii sidoo kale waxaan doonaynaa inay dhegaysato wasiirkii amniga inuu halkan yimaado waa rabnaa asagana iyo wasiiradii kale wasiirka arrimaha gudaha ka mid ahaa oo ay arkaan oo jiidihii la maro oo guddiyada lagu ballama shaqeeyaan oo nabaddii si dhaba loo xaqiijiyo iyadana waa doonaynaa haddii alla idmo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu